markaa waxaa jiray waddanka markaa dab ayaa jiro himilo ayaa jirtay iyo dad lagu dadaa jiri jiray oo ama dawladda ku jiro runtii qamaamuulka ahaa dawladda ama macallimiin ahaan jiray dhalinyartu xaqayagii baa naga maqan xaqayaga hala nasiyo xaq lagu siinayaa ma jiro qolooyinka buurta fuushan xaqay ku siin doonaan ma jiraan 40 sannadood dabadeed inay ku hor fadhiyaan bay rabi doonaan. If you give them a chance, they will turn sand into gold. haddaad fursad siisid camuudda ayay u bedeli doonaan dahab. camuudda ayay dahab u bedeli doonaan. markaa dawlad adiga fursad ku siinaysaa ma jirto. soomaad garan waddan fursad ku siinaya ma jiro. markaa adigu waa inaad noqotaa beeralaydii yarayda miskiinka ahayd haddii fursad la siin lahaa camuudda dahab u bedeli lahayd waa inaad noqotaa. anigu baadiyaan ku dhashay meel jigjigiyo gabil u dhaxaysa meesha tahay lama garanayo. aabahay wuxuu dhintay markaan grade 4 ahaa buu dhintay fasalka afraad ku jiray hooyaa noo shaqay jirtay baadiye quraanka markaan ka galay ya reer guuraya ya de kumanaan riyoodan aabahayna kuma riyoodan hooyadayna kuma riyooteen intaan Mareykan tago jaamacadaha ugu waaweyn Mareykan qaybta waxaan ka bartay inaan madax u noqon karo kumaan riyoodeen samaroonna imuu qabanoo gacanta imuu geyn halkaas samaroon baa taa lagu yidhaa sooma ya xasan sheekhna adeeriima siyaad barrana gabarka ma qabo soomaad garan dhalinyartu waa inay laba muunadood yeeshaan labadaa muunadood waxa weeyaan qof ama gabadh iyo wiil dadaalayo shakhsiyan doonaya inay mustaqbal u dhistaan waa inaad haataa Soomaalidu waxay oran jirtay tiisaba daryeel ayaa mid kalena ku dara sooma haddaanad adigu meel isdhigin cid kale waxba uma qabanaysid aabaha iyo hooyada baan wax u qaban iyo carruurta soomaad garan marka ugu horreysa waa inay kaa go'naataa adiga inaad meel isdhigtid waa inay kaa go'naataa no matter waxay yihiin carqaladaha dhulka yaala waa inaad jajabisaa soomaad garan haddaad jajabin guriga kuwa markaa iska seexo oo aakhiradaada usii ducayso degdeg isku xabaa markaad adigu meel isdhigtid ayaad ka fikiri kartaa markaa dadkii kale hareerahaaga joogay ama magaaladaada ha noqoto ama jaarkaaga ha noqoto ama waddankaaga ha noqoto ama khariidada Afrika oo dhan ha noqotee su'aasha ugu horreysa waxa weeyaan waddanka inna kale annagu ma leeyahay annagu berri baan ka rooxa ya maxaa rabtaan dantiinu maxay tahay waa dantiinu markaa ma inni hagi kartaa oo iimaan iyo edeb ma inni yeeli kartaa waa mise waxa weeyaan anu reer hebel baan ahay abgaal baan ahay marka waa inaan abgaalka iyo imaamka hoosta ka gala waxaana daarood baan ahay daaroodka waa inaan imaamkiisa hoosta ka gala ama boqorkiisa ya samaroon baan ahay waa inaan hoosta ka gala iyo wixii la caana maala haddaad jidkaa martaanna if iyo aakhiraba way nii dhammaatay ogaada waa ballan waay if iyo aakhiraba way nii dhammaatay mustaqbalna ma yeelanaysaan ya meeshana mustaqbal ma yeelanayso marka waxa weeyaan dantaa guud waa inaad ininku ka tarjumtaan waayo sidee looga tarjumi karaa markaas waxa looga tarjumi karaa laba siyaabood ya inaad ininku mabda ahaan isku urursataan waa kow iyo mid kastoo iniga mid ah ama gabadh ha noqdo ama wiil ha noqdo inuu edeb iyo olol yeesho waayo olol caloosha ka shidmayo doonaysa inaad hiigsanad sid wax inaad meel gaadhid maaha meel gaadhidood khiyaamo reer hebel ha jaranjarada ku fuushid si aad ra'iisul wasaare u noqotid ya inaad adigu isku filnaatid kalsooni aad qabtid buuxda oo ilaahaaga wixii ka sokeeya hanaad qof kale weydiinayn waxaad noloshaadu noqonayso geesinimo gaara ayaad markaa helaysaa marka haddaad taa shakhsiga iyo taa guud haddaad isku dartaan waxa ballan ilaahay noo qaada subxaana wa tacaala inaad guulaysanaysaa laakiinse caajisnimo iyo xaqayaga hala nasiiyo iyo waana doonata xaqaaga waana u shaqaysata labadaas siyaabood ayaa mustaqbalka looga dhalin karaa federationka la wadana mustaqbalkiina wuu aasayaa ogaada xabaal buu ku ridayaa ogaada anigu ma yahay abgaal ma hawiyana ma reen koonfurna ma ya Soomaaliga maxay keenay xamar maxaan inii la sheekaysanayaa wiya su'aasha Cabdi Maalik ma hadda hawiye ma ya
وانا نفولحون وبري هي مال باسكين دوا سوين قال يا marka waxa weyn maxaa hay isku keenaya weyn miyaynu is ogolnahay maynu isku dhaqan ogolnahay maynu isku diin ogolnahay maynu is af ogolnahay taas ay isku keenaysa waa marka waxa ku dhibaya hadaad hawiye tahay anoo bari galbeed ka yimid waa inaan ka naxaa anigoo galbeed ka yimid waxa bari dhibaya waa inaan ka naxaa ya ta islaamnimada kooranas internet Soomaalinimada soo gaaray islaamnimada guudba kooranas ya marka waa inaad fahamtaan edabtiina iyo ololkiina in la isku tolo si meel wadanku u gaaro inkuna hadu wuxuu noqotaa waxaan jeclaan lahaa hadu wadanku nabad yahay Mareykan maan joogay markan jaamacadda PhD da dhameeyay wadanku uu si dumay Soomaaliya meelan ku soo noqdaan waay waraaqama kuma lahayn marka Mareykan halka maan doonayno soo socdo waxaan doonay meeshan inaan wax ka dhigo markan arkay waxa socda baan ku dhacay bilaad hooyaday masruuf kama bixin karayo oo noolayd markaas marka waa inaan iska joogo meeshaas waxaan hubaa meeshan in khayraad u yaalo hadii xoog la geliyo waxa jirta buug oday Mareykan oo dhaqaalaha dhigi jira oo imka dhintay oo helay jaysadan la dhaho Nobel Prize Theodore Schultz baa la oran jiray University of Chicago ayuu ka dhigi jiray marka yihiin mustaqbalka kama fikiraan wixii soo dhaafay oo bay ka fikiraan ya uu bedelay marka buug marka waxa jirta meel yar kalmad buu ku qoray markaas if you give them a chance they will turn sand into gold hadaad fursad siisid amuuda ayay u bedeli doonaan dahab amuuda ayay dahab u bedeli doonaan marka dawlad adiga fursad ku siinaysa ma jirto samaad garan wadan fursad ku siinaya ma jiro marka adigu waa inaad noqotaa beeraleydii yareeyda miskiinka ahayd hadii fursad la siin lahaa amuuda dahab u bedeli lahayd waa inaad noqotaa sida qorada amuuda dahab loogu bedelayo wadan kan baabay ee balanbalay dahab looga dhigaya waxa weeyaan inkoo mid noqdo waay mabda isku raaca waay ka mid walba ka kala uu ku tiirsanaado uu ku kalsoonaado waay kalsooniduna waxay ku timaadaa ficil bay ku timaadaa hadal kuma timaado marka horta taa la ogaado maalintan amuud ka soo baxay ee la yidhi waa markii dhalinyarta lagu bilaabay shaqada qaranka marka waxaan goostay fursada qore markaa jirtay gahayr may jirin markaasi waxa jirtay kulliyadii macallimiinta jirtay markaas gahayr markaas baa la bilaabay marka inaan dibadda tagaan iska goosto ya markan shaqadii qaranka ku jiray sanad ayaa la yidhi Ethiopia basaasuta ana waqooyijo markaas la igu riday jeelka la igu riday marka waxa jirtay maxkamad waalayd oo maxkamadda badbaadada lama jiro Soomaaliya yaa qaranka marna jeelka Hargeysa la igeeyaa marna ka gabiyo la igu celiyaa 3 bilood kolka xaqan tamaadan xaqan baa la igeeyaa Soomaaliya markaas aan goostay inaan iskaga tago meesha ya waa 75 waa 74 waan iska tacbiray aabahay wuxuu dhintay markan grade 4 haabudit fasalka afraad ku jiray hooyaa noo shaqay jirtay ya iska tacbir tawakkal ala allah wa kafa billahi wakiila soomahan cid iga horeysay oo waxay siinaysaa ma jirto meel han garanayo ku socdaa ma jirto Soomaad garan laakiin se inaan xoogsado ka soo baxo ayaan goostay Soomaad garan mara ingiriiskan tagay warshad biraha lagu shiilaa sanad iyo xogaa ka shaqeynay lacag yar baan urursaday Mareykan baan tagay ya inaan dib dambe u soo eego ma hayna inaan iska iloobahay meesha Soomaad garan laakiin waxaan iloobi kari waayay wixii dadkii markan iskuulada ku jirnay hayna fursadayna siiyeen ee ii suura gelisay inaan Mareykan la tartamo ayaan iloobi kari waayay hawiyana way haayeen daarood way haayeen raxan weyn way haayeen dir way haayeen kuwa haynu sheegano inay ka tira badan nahay ee ruwaayada ah waa ruwaayad in laga tira badan yahay dad Soomaad garan maalinta la istiriya iyaga ay noogu badanaya taa hal ogaado Soomaad garan dadkaas oo dhan waxay suura geliyeen inaan fursado iskuulo u helo oo halkan wax ku barto si aan dadka kale ula tartamo taas waa la iloobi kari waay markaas fursada la nasiiyay marka waa inaad wax ku dartaa adigu
ما هاون إن دي الله وحسيوت كعنتون هوسبيك تدتك وحكو درس waxa weeyaan wixii lagu soo siiyay waa inaad wax ku kordhisaa Soomaal gar laakiin si hadda tiraahdo maxaan cunaa maxaan isticmaalaa ya waxa weeyaan raasamaalkii dad kala keenay ayaad xaaluf ka dhigaysaa marka intan baa la soo gaarsiiyo aabiyo hooyay habaryariyo eedii abtii adeer baa soo gaarsiiyay intan maxaad ku dari doontaan waay sideed ugu dari doontaan wax waay Yeah, how are you going to do that? Marka anigu labada jideen soo mareen ku sheegay midna waxa weeyaan ka academic tacliinta iyo ka kale activist ka Soomaal garan shaqaan haysta shaqadaydu waa caadi idigeeri kartoon ilaahay hayn ma jirto uma baahni biyo iska dhaaf maadan ya waan iska joogi karaa caruurtaydan iska korsan karaa ya Soomaal garan لكن ماشان wax noqotaan raba ma haynan anigu wax noqdo inay meeshan wax noqoto qaar baa kooran doona inaan wax ka noqdo meeshaasan raba no inay meeshaas wax noqotaan rabaan haday meeshu wax noqoto fursadaha qof walba u furmay haday waxba noqon weydo albaabada ay noo wada xilmayaan marka inay meeshan wax noqotaan raba marka wixii aan bartay waa inaan ku tarjumaa bal sideen ugu dari karaa wax wixii dadka kale iga horeeyay hay keeneen sideen ugu dari karaa wax Soomaal garan marka horta waa inaan libiqsiga ma taqaanaan bas waan nijilciya ya lama garanay miya sama okay libiqsigu waxa weeyaan qolooyinka waan garanaa laakiin aan garanay maanu jilcinaya kuwa garanay looma jilcinay man nuxsanayo waay nuxnasuga iska caajisan iska dabacsan man nuxsanayo Steph Soomaal garan libiqsi waa in taqaana maya jawaab ma albaabada waa inaad ku jabisaa furta maskaxiyan ya iyo muruqiyan labadaba waa inaad furta ta kale waxa weeyaan waa inaad himiro yeelataa waay adiga ka weyn aniga Cabdi Maalik ama Yurub iska joogi karaa ama Mareykan iska joogi karaa waa iska shaqaysan karnaa wax adiga ka weyn waa inaad ka fikirtaa ya waxa ka weyn waxa weeyaan qowmiyadaada ka weyn ya midabkaaga ka weyn dad Afrikaanta adduunyada kale waan la tartanta ya himilo waan jirtaa ku shidasa ilaa maalinta xabaashaad galis waan himiladaas jirtaa waxa la yiraahdaa waan qalin jabinay qalin jabintu waa awro waay qalin fiiqasho waay maalinta jaamacad ka baxay maalintaas jidku bilaabmaya lama jabinayo qalinka waa maalinta qoraalku bilaabmayo Soomaal himilow marka waa inay jirtaa inaad jirto inaad Afrikaanka kale la tartantid in Mareykan la tartantid Soomaal anigu baadiyaan ku dhashay meel jigjigiye gabilow dhaxaysa meesha tahay lama garanayo markuu Cabdi Maalik dacaadeen yiraahdo wuxuu qariyaabo yiraahdo maalintu dhashay waxa soo qoray isagoo xamar buu ku dhashay oo iga baxsan yahay Soomaa baadiye quraanka markan ka galay ya reer guuraya ya de kumanaan riyoodan aabahayna kuma riyoodan hooyadayna kuma riyooteen intan Mareykan tago jaamacadaha ugu waaweyn Mareykan qaybta waxaan ka bartay inaan madax u noqon karo kumaan riyoodeen samaroonna imuu qabanoo gacanta imuu geyn halkaas samaroon baa taa la yiraahdaa Soomaa ya حسن شيخنا عذريما سياد برنا قبرك ما قبل سوما قر مركز اللي بقسلام واي هداد داشيد إلهي وكل قبرنيا هداد احترامتي عادك نوالو احتراميا هداد إيمانية أو شقيسن كرتي أو سكوف لان كرتي dadka kalena way ku daba joogsan doonaan marka himilo waa inay jirtaa himiladana waxay suura gelinaysaa wixii hore inaad wax ku dartid ya si wiilkaaga iyo gabadhaadu iyo kuna waxay ku daraan fursadna wax helaan laakiinse kalidaa waxba ma qaban kartid markaan arko qof Soomaali wax wanaagsan sameynaya meeshay doonayso iyo meeshu doonaya ka yimaado كمان حيوان كفرحة سمعت قرن
qofka Soomaaliga waxa sameeyay ma sha Allah mo faarax ba orodkii Ingiriiska adduunyada ka badiyay u soo joogsado sacabka u tumo ya qof dhakhtar waxa sameeyay qof makaaniga waxa sameeyay qof kabayaay waxa sameeyay waa inaad adigu ku tiirsataa oo niyadaadu furantaa laakiin waayahan dambe xaasid baa la wada noqdo waxa laga naxayaa hadduu wax noqdo way ka naxayaan ama qabyaalad ahaan bay uga naxayaan gabadha ama gabadh ahaan bay uga naxayaan kuwan wiilalka markaas quruxda badan leh ya markay gabdhuhu noqdaan waxa laga naxayaa gabadhii ba ka sarreynaysa la oranaya wada sarreeyo ka adkaada laakiin say ninkana cuqdadiyeen in gali samaynka waa oran kooni waxa maaha daduguna waxa ma noqon sidoo way markaas ya inakuna oo ogolaada bal hada islaam hadaynu waxaan doonaynaa boqolkiiba 50 ama 50 dadkeena ama Soomaaliya hawa ma Arab hawa in garbaduub loo hayo oo ina waxba noqon adduunyada kalena boqolkiiba 100 baa ordaya de lama tartami sidkan marka adduunyada gabdhahan waa ina dhakhtar noqdaan waa ina madaxweyne noqdaan waa ina ra'iisul wasaare noqdaan waa ina makaanik noqdaan waa ina beeraley noqdaan caruurtiina ayay aqliga u kordhin doonaan Soomaaliya laakiin haddaad ka naxdaan ama hoos u dhigtaan inakuna hoos baad isku dhigasaan ogaan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye wixii shakhsiga ahaa ololkii ku hayay waa inuu laba af yeeshaa kii shakhsiga ahaa adigu isku dhisasay iyo kii community-ga ama ummadda had ku dhisasay Soomaaliya marka waxa weeyaan inaad isqabsataan gacmaha inaad activist noqotaan ya inaad ku faraxdaan wixii wanaagsan wixii ka xunna ha tiraahdaan nama qabato taasi Soomaaliya ya waxaan ku soo gabagabeynayaa imika waxa la dhisay federation qabaayil ku dhisan ya waa farda iyo dameero ayaa la kala noqonaya fardo isma guursadaan de fardiyo dameero haday isguursadaan baqal bay dhalaan baqalashuna waa dhamadhaleys waa marka waa tirtir masa haytaan mali mustaqbal mali duwaay qabyaaladu waxa weeyaan waa baqal waay wanaag ma dhasho timacada soo mooran ya dugsi mala qabyaaladi waxay dumisay mooyaan arbar meel hay dhistay keen Soomaaliya waxa la yiraahdaa gobolkan dadka degan u badan ayaa Soomaali halka qabtay baa la dhahaa oo Soomaalida kala ka socon kari lahayd run iyo been waxay tahay Soomaaliya halkana dhismayso halkaana dhismayso marka hil qaran wuxuu leeyahay war waan gacmaha isqabsanaa mabda'an ku heshiina ya dhaqan baan leenahay uu wanaagsan yahay diin baan leenahay way wanaagsan tahay ya laakiin labadaas hadayna institutions lahayn labadu midna ma soconayo